نعودوني نبضي معاني نعودوني نقائي برواقة نمعلق قبوبة التناسي المانو لغتشق النفقادة نحاريست إيباي نيدنا أروني نفتيدا كجحرو رجاء النسخة مايم وقنا وليسي نبضي معاني نعودوني نبضي معاني نعودوني نقائي برواقة نمعلق قبوباي الناس المانو لغتشق النفقة داي نحاريست إيباي نيدنا أروني نفتيدا كجحلو رجاء النسخة مايم وقنا وليسي يا بريد إلهيو كما نوغ دعالي يا بريد إلهيو كما نوغ دعالي دلك نوغ سونقو wadadaha dadka waalidiinta oo idinka waaweyn dhex degay adinka jiiri kara adinka idinka rabaa inaad jiirtaan inaad taariikhdaas tirtirtaan baalkaas madow inaad badashaan xaashi cad inaad hadda wax ku qorataan oo noloshiina wanaagsataan bilow fiican baad samayseen ha ka harinina niyad dhis bay u tahay waa la idinku dayan doonaa banaanbaxan aad iyo aad baan u taageersannahay dhinaca kalena waa loo gudbayaa haddii ilaahay idmo haddana waxaan joognaa 5 star xagga kalena waa la tegayaa bangiga hortiisa sidaanu ku ballannay waxaan soo dareeriyay ardadii cabdirashiid cali sharmaake ayadoo leeyahay haddii ardadaa wax ku dhacaada ka mas'uula boqolkiisa qofkii wax la gaaro waxaan soo dareeriyay gudoonkii waxbarashada oo leh ma geyn karti ardada marka waxa weeyaan waa tusaale waxa weeyaan cumar samatan iyo waxaan ballansanayn iyo waxa weeyaan iskuulka gaalkacayo iyo xaaji cali bixi waa isu gaalkacayo wayna soo raacday gadaal baa laga bajeed waxaan iyo haardada geynina annagu waxaan qaadamayna waan aadayna marka waxa weeyaan insha allah waxaan jecelnahay ardayda kumanaan kuna inay halkaa timaado waqti kale oo waxaan kugu baaqayaa nabad dhalinyarada maanta isku soo baxday waxay ka turjumaysaa gaalkacyo inaysan rajo dhigin waxay ka turjumaysaa gaalkacyo inay nabad tahay meesha hadda taagannahay waa wada jir galmudug haddana waxaan aadaynaa puntland qaybta waqooyiga gaalkacyo wax kale xiran ma jiraan isbaaradu waa qalbiga gaalkacyo ha midowdo gaalkacyo ha midowdo waxaan ka dambeeyay u mahadcelinayaa ciidanka isku dhafka waxaan kaloo u mahadcelinayaa madasha dhalinyarada isdhexgalka dud mudug oo haddii alla ku rooyaa ka beeshta qayb weyn ka qaadatay ardada ka soo qayb gashay dhammaan waxaan rajaynayaa isku soo baxa ku xuga inay iskugu yimaadaan علماء هذا لك رئيس سياسيين هويين هوان وحقرت عدو البيان الله يمقنا أنا سوى هشانو ولا ريال وذا تشيرنو ولا ريال أنا سوى هشانو ولا ريال وذا تشيرنو ولا ريال أنا تليها أيضا كسكو دفكا قبل كالكعيو marka waxaan u mahad celinaynaa intii soo qaban qaabisay intii ka soo qayb gashay waxaan ka daalayn oo aan ka caajisayn inta nabadda ka shaqeynaysa sida kuwa saaka shaqeynayo oo dhalinyarada inaanu la shaqeyno habeen iyo maalinba nafteena aan u hurnaa diyaar u nahay waan u mahad celinaynaa markastana ka caajisamayna waana la shaqeynaynaa nafteena waan u huraynaa sida kuwa saaka shaqeynaya u shaqeeya hadda ka bacdiya hadeerba haddana xilli kuleyl baanu ku jirnaa ardada qaar baa dhacday
marka intii de xabadu wiftaa ay ku dhici lahaayeen oo dhiman lahaayeen iyagoo nabadda ka shaqeynaya in wadnuhu istaagaa fiican saasaan anaga aaminsanahay haddana waa shaqaynaynaa waxaan aadaynaa dhankaas Puntland isbaarada qalbiga aan qaadaynaa hadda dhankan galbiga waa laga qaaday ardadii saakay arrintan binaysay iyo intii ka soo qayb gashay iyo intii soo abaabulshana 14 boqolkiiba maasan yihiin dadka Soomaaliyeed baan la hadlayaa maanta qiiro aad weyn baa qaaday ardayda waxay garatay odayaasha garawaayeen nabadda ardayda raadin waysa dadka Soomaaliyeed waa garawaayeen ilaahay waxa ka barinayno ilaahay nabadda siiyo ilaahay waxa ka barinayno nabad baan rabnaa cadceed baa fadhidaa taaganahay ilaahay nabad hana siiyo ardaydan ilaahay hanoo qaado ardaydan nabadday raadinayaan ilaahay hanoo qaado sadexgalka ilaahay hanoo qaado hadda galmudug baan taaganaa dhibaato ma jirto Puntland sidaadoo kale ha noqoto dadka musliga ha isku darsooma Soomaali ha israacdo dalkayna nabad ha ka dhalato qab iyo dagaal annaga ku dhalana ku kornay ilmahayna ku koro kawownay rafaad naga muuqda Soomaali ha israacdo beentii oo la jidhay gaalkacyo dhexdeeda ayaan saaka qaadnay labada dhanba ka qaadnay maantay laba dhan ma oran karno gaalkacyana la yiraahdaa maamul waa leenahay laakiin bulshadu waa hal bulsho waa bulshadii gaalkacyo dhalinyaradu waa dhalinyaradii gaalkacyo ciidanka shaqaynaya waa ciidankii gaalkacyo hooyooyinku waa hooyooyinkii gaalkacyo ganacsatada taagtaagan waa ganacsadii hooyooyinka iskoolooyinku waa iskoolooyinkii gaalkacyo waxa la yiraahdaa Puntland iyo Galmudug oo aan kala sheeganayna ma jidho namana kala anfacdo labana deeqdo nabad baana deeqda warni dhintay waa dhintay muxuu keenayaa mid kale hadii la dilo waa khasaaro war anaga qof naga dhinta ma rabnee kii naga dhintana alxamdulillah ducaa waa u ducaynaynaa ilaahay waan u baryaynaa kii inta noolna aan badbaadino inta 235 boqolkii 75 waa dhalinyaro Soomaaliya haddii 35 fidna wadayaal iyo dad kale isugu jira ay naga awood badiyaan suurta gali ka dhac waraan nabad u istaagno Soomaali baan la yiraahdaa Soomaali ha noolaad waxaan joogaa koonfurta waqooyiga gaalkacyaan joogaa raalnaboodka waqooyiga gaalkacyaan joogaa Galmudug baan ahay waxaana ahay dhalinyaro ma kale lihin meel bal fiirshaas baa isbeenta noo taalay inay beenta isaa ku ogaado nabaday warkaasheelan ninku waayay baa sheega hasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega hasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega nabaday warkaasheelan ninku waayay baa sheega hasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega hasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega maanta waxaa farxada in intaan waa ardayo oo dad aad u daayir ay halkan iskugu yimaadaan runtii midnimada gaalkacyo waa wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in intaan oo arday ay maanta qaadeen isbaaradii qalbiga ahayd ee ummadan agtaalay ummadaha dunidu waa isu soo laayeen dunida caalamiga ee maanta hormartay waxyaabihii ka dhacay lama soo koobi karo way ka heshiiyeen Rwanda ugu dambeysay oo waad aragteen maanta meesha ay marayso waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ay wada jirkeena si toos uga shaqeyno waxaan mahad celinayaa madasha iskoolaadka iyo dhammaan dadka ka qayb qaatay iyo bahda warbaahinta ee halkaan maanta u taagan ee nala socotay ciidamada isku dhafka ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaynaa Soomaaliya tooso isku tiirsaday abbakiina taagdaranay taageero waligiina waxaan taaganahay waqooyigii Puntland baan taaganahay ma kala lihin annagu Puntland iyo Galmudug walaalaha waxaan nahay
walaalaha gobolka mudug baan nahay walaalaha gobolka mudug baan nahay waxaan nahay dadkii gobolka mudug ku soo dhintay oo inta taagna waxaan u taagannahay nabadda gobolka mudug waxaan u taagannahay nabadda gobolka mudug waxaan u mahadcelinayaa ururka dhalinyarada ee gobolka mudug aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ardada gobolka mudug oo dhalinyarada ah oo jecel nabadda gobolka mudug aad iyo aad ka ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga ee isku darka ah ee nabadda gobolka mudug ka shaqeynaya aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay nabadda gobolka mudug waa loo baahan yahay ha laga shaqeeyo waa loo baahan yahay ha laga shaqeeyo waxaan maanta lagu taageerayaa nabadda Gaalkacyo reer Gaalkacyo waxaan leeyahay iyo reer mudug waxa weeye gobolka mudug waxaan leeyahay Gaalkacyo nabad bay nagu deeqdaa horumar bay u baahan tahay Soomaaliya waynu ka harnay dagaaladii iyo qixii la soo maray 25 sano waxay ku soo dhamaadeen oo ku soo urureen Gaalkacyo dadka maanta degan umba waligood sii deganaya hadda ka hor soo deganaa dad kale meeshii la keenay maayo war fadlan waligood waan soo wada deganayn haddana waa sii wada deganaan doonaa aynu iska deeyno dhibka dagaal horumar lagu ma gaaro wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho laami inoo dhiso maayo dagaal waxa weeye beer inoo abuuro maayo dhul waxa weeye inoo cagaareen maayo dhir inoo soo saari maayo intaas dhan waxa inoo qaban karta nabadda dhamaanteen nabadda ina wada deeqda dhulku waa inagu filan yahay way inaga weyn yahay wax badan buu waliba inaga weyn yahay dhulka gobolka mudug waxa arkaysaa dhul haddii aad maanta lugayso 6 saac iyo ka badan haddii aad lugayso aadan arkaynin qof bilaadan oo biyo ka waraabiya cillad darteed qof daga ayuu leeyahay qof ka faa'iideysto leeyahay qof isticmaalo leeyahay haddana saas ay tahay waxaynu isku dilaynaa oo isku leenaynaa wax ka yar 50 sentimeter ama 50 mitir ba iyo 100 mitir wax ka yar bal maalinka isku qabsanayna oo isku leenaynaa taas waxay la tahay aqli xumo taas waxay la tahay jaahilnimo waxay la tahay dhalinyarada meesha ka kacaan oo dhalinyarada wax dhimanaysa waa idinka dhulku wuxuu sugaya waa idinka dadku waxay sugayaan waa idinka dhalinyarada reer Gaalkacyo meesha ka kaca nabadda u dadaala oo nabadda u dadaala kanaran shaydaanku kanaran nabaday nalka daaran waxa tahay nimcada eebe nabaday nalka daaran waxa tahay nimcada eebe kanaran shaydaanku kanaran nabaday adiga naflada janagtiganaada dooja qofka noole joogana adakaaba nabade qofka noole joogana adakaaba nabade adiga naflada janagtiganaada dooja qofka noole joogana adakaaba nabade qofka noole joogana adakaaba nabade nalka daaran waxa tahay nimcada eebe nabaday nalka daaran waxa tahay nimcada eebe